cigaal faarax baan kuu bariyey iyo cuurka aan nahay cashadaad ugaadh doonatood calallad u xoorto cirka mari rasaastuu midgaan ka cokanaadaaya buuri. waa mar kale iyo barnaamijkeennii sahanka sugaanta iyo sooyaalka soomaalida. barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa laba sugaanyahan ama laba nin oo isu gebiyey oo sugaanta isku abaaray amaba isku awaadhay. inta badan ma badno soomaalidu inay sugaanta isku habaarto, waayo hiddaha ay aaminsanayd baa ahaa haddii uu maansayahanku ku habaaro inaan isha laguu marmaraynin, habaarkiisana la aqbalayo. aan eegno taana kama foge waa gabay la aqbalay oo habaar ah, hase yeeshee markii dambe duca laga dambaysiiyey. waa sheeko qurux badan oo dhex martay laba nin oo reer ciideed ahaa. midi waa sugaanyahankii weynaa ee Samatar Baxnaan Cabdille, sugaanta soomaalidana foolaadkeeda ragga ku jira ka mid ahaa. Samatar ayaa maalin maalmaha ka mid ah deegaankii uu dhaqatada ka ahaa, geelana uu ku raacan jiray, waa geyiga ciideed ee Doollo iyo Buuhoodla u dhaxeeye. maalintii dambe ayuu nin ay isgaranayaan oo la yidhaahdo Jibriil Mire oo ka mid ahaa dadka deegaanka degan, ha yeeshee dadkan Madhibaanka reeraha la yidhaahdo ah qabiilka Madhibaanka ka soo jeeda, kabahana toli jiray ayuu soo dul joogsaday. wuxuu yidhi, Jibriilow, waxaan kaa toyanayaa inaad ii samayso oo aad ii tosho kabihii faygamuurta ahaa ee aan jeclaa xaragadooda. waa kabo xilligaa aad loo jeclaa, sun laga samayn jiray, ragguna ay ku xaragoon jireen, qodaxda, ciriidda iyo wixii kale ee kaba celin jireenna celin jiray. calaayi xaal kabahaas faygamuurta ayuu ka dalbaday inuu u sameeyo. qiimihii baa laga gorgortamay, meella waa la isla dhigay. qiimihii markii laga heshiiyey ayuu Jibriil Mirena hawl galay, kabihiina waa dhammeeyey. Samatar si ay noqotayba dhowr maalmood buusan dib ugu soo jahanin. maantii dambe ayaa Jibriil isagoo kabihii haya ayaa nin kale soo dul joogsaday oo ay isna isgaranayaan oo ragga deegaanka ka mida oo la yidhaahdo Aadan Haaruun oo reer Caanadiid lagu naanayso. ninkaasaa u yimid oo yidhi, Jibriilow, Samatar kuu iman maayo ee kabahane anay igu tooboon yihiin, maad aniga isiisid, lacagtuu kugula heshiiyeyna anaa ku siinaya. Jibriil hawraarsan iyo guddoonbu yuu kaga jawaabayoo kabihii ayuu farta ka saaray. xilligii carraabada iyo casarka marka la joogo ayaa Samatar oo ka tuuraya isi soo dul taagay. markaasuu yidhi, Jibriilow, kabahaygii isii, mise maxaad ii dhiibatay? cadhaa digsiisay Samatar. si alla si uu ninkan kaga aarguto ayuu garan waayey. gacan, af, adin, si alla si uu ninkaa kaga aarguto ayaa in muddo ah uu maskaxda rogrogayay. Samatar waa iska dhaqaaqay. ninkuna ninay in badan isla yaalleen, xilliyada abaaraha iyo jilaalku markuu dhexartana Samatar geeliisa caana uga lisiyaa, awr goolo u qaliyaa, carruurta iyo reerka la samata bixiyaa, ninuu si gaara u dhaqaalayn jiray ayuu ahaa. xirfadda keliya uu yaqaanayna ay tahay ninkan kabatolaha ahi kabahaas iyo ugaadhsi ama gabraar uu u soo gabraaro ubadka iyo ooridiisa si ay gaajada u macsalaameeyaan. Samatar tala waxay kaga ibabeeshay inuu ninkan u gabyo, gabaygana uu ku habaaro. ha yeeshee muxuu ku habaaraa? wixii uu ugu jeclaa, xirfaddiisa iyo xoogsigiisana uu ku tiirsanaa, noloshiisuna ahayd ee gabraarta ahayd ayuu Samatar ka habaaray. gabay aad u qurux badan ayuu tiriyey oo uu ugu abaal sheeganayo mararka qaarkood oo uu goolashii uu abaaraha u qali jiray sheegayo. carruurta siduu ula soo koriyey iyo xilliyadii adkaa ee uu kala soo dabaashay uu sheegayo. ninkan siday oolka u yihiin ee uu hiilkiisa mar walba ugu darban yahay uu sheegayo ayuu gabaygaas ku tibaaxay. uma baahna furfurid iyo faallo badan oo aan ka bixiyo ee jawaab iyo gabayo kalea ka dambayn doono oo uu ku soo jawaabi doono kabataluhiye. Samatar wuxuu yidhi, 20 sanaan ina mirow, caydha kaa sadeeye carruurtaada xoolahayagaad uga cadgoysaaye adigoo cadilan gaajo waa cudurro waaweyne waa taad caddaawiyi qasheen. calanlahaygii waa awr uu xilli abaar ah u gawawiray, waa taad caddaawiyi qasheen. calanlahaygiiyo markii inama kuu ciidansheen, cuudna lagu siiyey haddaad haatan naga caymatood soo cagdhigi weyday oo adiga reer Caanadiid calan laguu saaray oo saaka kabahaan codsaday. iiga camalaysay cigaal faarax baan kuu bariyey iyo cuurka aan nahay cashadaad
cashadaad ugaadh doonatood calalladu u xoorto cirka mari rasaastuu midgaan ka cokanaadaaya buuri cirka mari rasaastuu midgaan ka cokanaadaaya caad weyn ilaah kaaga gudo ama seceeryaamo kaa carar haddaad gooni daaq cududaha u saarto coodida biciidkiiyo ha cunin waxaad cadtuugaysa awalba caano geel kama dhammayn culus dhanaankiida cariishkaaga baahila fadhido calalis haw doonan buuri samatar maansadaa kooban ee awaadhka ah ayuu garhka u geliyey gurigiisa inuu baahi iyo gorof madhan la joogo si kasta oo uu saryanka goodirka iyo ugaadha u raadsadana hungo inuu ku soo noqdo shiishka uu ku qabto tii uu helay inuu cirka mariyo oo uu la waayo ayuu ku awaadhay marka loo eego jibriil mire hawshii iyo xirfaddii uu ku noolaa iyo gabaygani aad bay u kala fog yihiin waayo dhuunigii keliya ee uu ku noolaa ayuu ka habaaray ma laga aqbalay samatar mise lagama aqbalin samatar waa laga aqbalay waxaana sheegi doona isla jibriil mirihii ayaa sheegi doona in gabaygii laga aqbalay isaga iyo ugaadhii ama isagii iyo gabraartiina ay hungo kala taagan yihiin ha yeeshee bal gabayga aqbalka ah iyo qisadaas dambe ee sida looga aqbalay intaynan u gudbin jibriil mire nin la soo awaadhay oo loo soo gebiyey buu ahaaye muxuu yeelaa alla ilaahay tala isna waxay kaga iba beertashay waa la habaaray isna inuu habaaro oo isaga bal gabraartii baa laga habaaray iyo halkii uu ku noolaaye samatar muxuu ka habaarayaa samatar wuxuu ka habaaray geelii u jeclaa toomaha uu ku foofin jiray ee uu usha dheer u sidan jiray xaragadiisa iyo caanihiisana uu aad iyo aad u jeclaa jeer uu gaboobayna uu inoo sheegayba oo uu samatar inuu odhan jiray ma dayacay horweynkii sidii dahab dhalaalayay isagoo duleedada ku dhalay ama ka doobiyaayo ma inaanan soo daawan baa igu dambaynaysay geelii uu sidaa u jeclaa ayuu jibriil ka habaaray isna muxuu yidhi koluu cararo oo bahal ku jaro tooma cidhifkooda colkoluu la tago oo dagaal cudud leh loo waayo cadha kolay gasho oo nirgaha caymasho u diido cashaduu aroorana koluu ceelka ku hungoobo curdunkiyo uneexada ka guro caydhna ka ahaw curdankiyo uneexada ka guro caydhna ka ahawe caneeqaad ka waa oo ilaah kaa casaba gooye saaqa dheer cariishkay fadhiday caana ha u doonan ha ka ceeshin geelaa ajigu ka cokanaadaaya buudhi halkii uu lahaa samatar cirka mari rasaastaa midgaan ka cokanaadaayo isagu wuxuu yidhi ha ka ceeshin geelaa ajigu ka cokanaadaaya halkii uu samatar lahaa cariishkaaga baahila fadhido calalis haw doonanna wuxuu yidhi saaqa dheer cariishkay fadhiday caana haw doonan halkaas baa la isku awaadhay labada maansayahana ay jiribka isugu aaseen maansadan ugaadhsadaha ama gabraartaha waa jibriile sida ay maansayahanadu soo wariyeen dadka deegaankuna ay wariyeen maansadiisii lama aqbalin ha yeeshee tii samatar isha looma marmarin oo ilaahay waa ka aqbalay maantii dambe ayuu jibriil gabraarsi tagaa qorigii iyo shakadii rasaasta ahayd buu qaataa duurkii iyo dooxooyinkii ay sariirnaan jirtay goodirka iyo ugaadho ayuu aadaa ha yeeshee ugaadh kale ha sii joogtee golcastii iyo sagaaradii buu soo waayaa markaasuu isagoo hunga ah dib u soo dheelmadaa gurigii iyo bartii uu saaka ka kalahay ayuu isagoo baahan ubadkii iyo ooriduna baahan yihiin bay isku soo duldhacaan in muddo ah markay xaaladdu sidaa ahayd ayaa ooridii iyo ubadkii habqan iyo habaqla bilaabeen dumarkiina ka dudeen gurigii markii dab la shidan waayey hilbihii uu u hilbayn jirayna la waayey ayay xaaladdu ku adkaatay noloshiina geesariyaad ku yeelatay jibriil xaalku markuu halkaa marayo ayaa rag tale kama dhammaatay wuxuu yidhi war jibriilow maanta maxaad yeeshaa talaa kugu cakiran ina baxnaan gabaygii uu kuu tiriyey ee kugu habaarayna ilaahay waa aqbalaye maxaad yeeshaa maantii dambe ayuu gurigii samatar baxnaan soo tamadiyey samatar oo geed gurigiisa u dhow iska harsanaya xilli duhura ayuu isagoo qorigii iyo shakadii wataa isku soo dul tuuray qorigii iyo shakadiina samatar ayuu hortiisa dhigay oo yidhi samatarow qoriga iyo shakada qaado oo maxaa wacay haddii uu tamadiyeyna wuxuu yidhi mar haddii ugaadhsigii saryankii goodirkii iyo ugaadhii aan ku soo ugaadhi jiray ehelka iyo ubadkuna ku noolaayeen aad iga habaartay shaqadii aan ku qaban jirayna faramadow ka taagnahay isagana ku darso maadaama uusan waxba iigu filayn samatar intuu dhoolla caddeeyey ayuu yidhi war bal horta qorigaaga iyo shakadaada hoo
adna soo dhowow. halkii ayuu u wacay in caano geel iyo karuurkii uu u keeno. baahidii iyo markii ay ka hadhayna uu ku yidhaahdo, jibriilow, mar haddii gabaygayga habaarka ahaa ilaahay aqbalay, maalin dambena shiish aad saartay aadan kaga soo qaadin, dumarkii iyo haweenkiina aadan dib ugu hilbaynin, ilaahay iga aqbalay habaarka, maantana ducada waa iga aqbalayaaye, bal ducadan faraqa ku gunto. gabay buu ku habaaray, gabay buu ugu duceeyey. markaasuu wuxuu yidhi, ilaahow midgaankii hungow haribka ahaaya allahayow habeeniyo dharaar soo hargeli waaya allahayow haweenkii ka dude, allahayow haweenkii ka dude loo hilbayn jiraya allahayow horweyn uma lisayn, hal iyo neefkeeda alla gudur horyaal iyo dheryey kaga hodmaayeene allahayow adaa heli karee ugu higsii maanta buu yidhi. allahayow adaa heli karee ugu higsii maanta buu yidhi. ilaahu maanta ugu beeg buu yidhi oo goodarkii iyo saryankii iyo ugaadhiisii ugu beeg. ducadaas buu aaminsaday. horeyna intuu u kacay oo u hilhishay ayuu shakadii jaani qaartay, qorigiisiina lalansaday. markii uu kabaha iladayna tuduc kale ayuu ka dabageeyey. Samatare wuxuu yidhi, berri bow horrayse ee markaad boodhka ka afuufto bowdada ku jebin neehidaad bay didaad tahay buuri. markaad ku qabato ilaahay idankii dhinaca ka marinine bowdada iyo neehida intaad ku jebiso ka hilbayso oo haweenkii iyo ubadkii habeen dambe gaajo kuma seexdaan, kumana soo toosaan. markiibuu kabaha iladay sidii ay taariikh yahanadu soo wariyeenna abwaan axmed faarax cali idaajaa isagana aan ka hayno, maalin dambe hunga kuma soo noqon. ha yeeshee jibriil wuxuu is yidhi, allaylehe samatar baxnaan mar haddii uu markii hore ku habaaray oo kaaga soo qaaday, mar hadduu kuu duceeyo ducadii laga aqbalay, allaylehe adiga qudhaado waa adiga habaar kaa tegaye duca ka dabageeyo adiga qudhaadu abaal celiyo dee samatar gabay ducaa u tiri oo waa adigii geela ka habaaree geela ugu ducee. samatarna waa kii geela jeclaa. 3 meeris oo qura ayuu ugu duceeyey. wuxuu yidhi, allahayow horweynkii la waa haybadda lahaa, allahayow hormuu weli wadaa hala aan fiicnayna, allahayow hareeraha ka keen wuu habeen dhalade buuri. allahayow hareeraha ka keen wuu habeen dhalade buuri. isagana sidaas ayuu geelii ugu duceeyey. ha yeeshee maansooyinkan ay isu tiriyeen markaad eegto waa maansooyin aad u qurux badan. waa habaar iyo duco isku hawl ama isku ajende khuseeya. waa 2 abwaan oo marna habaar isweydaarsaday marna duco isweydaarsaday. ha yeeshee sida ay wariyeen aynuna soo xusnay samatar baxnaan 2 goorba waa laga aqbalay. waana halkii ay Soomaalidu odhan jirtay waa afkuleeblo oo haddii uu ku habaaro suugaandhaarigu waa lagaaga soo qaadaayo. Soomaalidii hore way xushmayn jirtay sida ay culimada u xushmayso. hadalkiisa iyo hawraartiisa maya kama odhan jirin. haddii uu gabyana oo uu duca ku gabyana waxay rumaysnaayeen in la aqbalayo. haddii uu habaarana sidoo kale inaan isha loo marmarayn bay rumaysnaayeen. malahayga markhaatigana waxaa u furaya maansooyinkan aynu aragnay ee habaarkoodii la aqbalay, sidoo kalena ducadoodii la aqbalay. waa barnaamijkeennii sahanka sugaanta iyo sooyaalka Soomaalida oo aynu maanta ku soo qaadanay 2 reer ciideed, Jibriil Mire iyo Samatar Baxnaan. intaynu barnaamij la mid ku kulmi doonno fi amaan Allah.